بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذن سلامي دمان والله شرفت له إن ما أنتوا حيدين كل صوت الجلادي له هي كرر النقضة سيد الله حساباتك أديكو استعمال إكسل especially ما أنتوا حنتعامل إن سيد نتيجوين كسكول كوكلا لصوص هارو أما الله حسابيو سيد total كا average كا grade كا يوريسال تيجا قف كاسينو هرايو إنو بدبي ayaa rabaa maanta inaan xisaabino ugu horeyn waxaan ka bilaabi doonaa totalka haddii hal mar aan soo saarno kuwa kale ama hal mid haddii aan soo saarno kuwa kale by automatic ayaan soo saari doonaa sida gradeka iyo resultigana way la mid yihiin totalka ayaan soo saarayna haddii la kala noqdo ugu horeyn waxaad leedahay qaacidooyin ayaad adeegsanaysaa qaacidooyinkaas inaad fahantid ama kor aad ka haysid waa muhiim equal ayaad leedahay sum okay break ayaad furaysaa shift 9 adoo qabanayo ama tab aad taabanaysaa calaamada tab haddii aad taabatidna oo ku furmi doonaa breaka okay kadib waxaan leenahay godkan c ah godkiisii labaad oo kale leenahay c2 saas waa u qori karnaa haddii aan rabno waxaan dhihi karnaa click ayaan ku siinaynaa darajada koowaad okay kadib waxaan leenahay shifty laba dhibcood ayaan saaraynaa meeshaas marka okay then waxaan leenahay f2 shifty control ayaan la qaban karnaa click ayaan kusii karnaa ayse ahayn waad qori kartaa f2 then bracketka ayaad soo xiraysaa shifty 0 adoo taabanaya aad soo xiri doontaa then halahaas markaa qortid wuxuu kuu calaamadaysa ujeedid halaha darajo meesha ku yeelo oo ku fududeynaya waa midka koowaad iyo midka afaraad ama midka maadooyinka intay ka kooban yihiin iskuulkaas inta maado uu bixinayo di 9 yihiin 7 haday yihiin hadba maadooyinka xisaabinaysa ku xiran yihiin midka ugu horeeyo iyo midka ugu dambeeyo ayaad kala soo siinaysaa sida hadda qaacidada ay noo qoran tahay meeshaan oo kale then marka aad dhamaysid enter ayaad leedahay okay soo ujeedna hadda darajada qaybta sare ayaa lagu soo dardaray halaha kale automatic ahaan ayaan soo saaraynaa okay meeshaan ayaan ku aadinaynaa falaarteena marka calaamadeeni ay noo noqotaa fargeeskaas ayaan qabanaynaa shift left click then hoos ayaan u jiidaynaa waa ku jiidaynaa maadooyinka kale by automatic ayaa loo soo saari doonaa okay soo ujeedno dadkaana maadooyinkooda waa la soo saaray wax u dhima male okay totalka sidaa ayaan usoo saarnay haddii aan rabno way kala usoo saari karna ayaa jiro totalka iska tiro okay godka totalka markaa saas ugu rufistid waxaad samayn kartaa home ayaad tegaysaa okay then qaybta editina ayaad waxaad ka dooran doontaa auto sum marka auto sum aad soo furtid sum ayaad ku dhufsan doontaa okay soo ujeedna hadda by automatic ayuu wixii dhan uu soo geliyay shift c2 iyo soo ujeedno wuxuu isku soo daray ama soo qaatay okay soo ujeedno marka outsum aan kusoo dhufsanay wuxuu soo qaatay equal sum bracketkii ayuu furay c2 laba dhibcood f2 okay saas markaa usoo saart kadib enter ayaad leedahay then by automatic ayuu kugu soo saari doonaa darajada kadib waxaad leedahay meeshaan ayaad qabanaysaa hoos ayaa u jiidaysaa ilaa maadooyinkaaga okay then maadooyinka dhan uu kuu soo saari doona haddii ilaahay kala noqdo sidoo kale averageka marka aan soo saarayno waa la mid sida qaacido ayaan adeegsan doonaa waxaan leenahay equal average ayaan leenahay average okay average markaa saas u qorno waxaan leenahay bracket no for then waxaan leenahay gacanta ayaan ku qoran doonaa c2 laba dhibcood then waxaan leenahay f2 average kiisa ayaan xisaabanaa midaas la soco then
iisoo xir bracketka shift 0 then waxaan leenahay enter darajadii oo ahayd averageka ama celceliska ayuu inoo soo saari doonaa kadib silsiladii ayaan yeelanaa automatic hoos ayaan ujiideynaa ilaa hoos okay waxaa ujeednaa hadda marka qof walbo averagekiisa in lasoo saaray labadaas waa isla soo fahnay totalka iyo averageka sida aad u filayo sidoo kale waxaa soo haray gradeka gradeka qaacidiis kastoo waa iska dheertahay faham adag bay u baahan tahay inkastoo hal mar haddii aad fahantid ay aad u fududahay okay ugu horeyn waxaad sameynaysaa equal if ayaad leedahay haddii bracket ayaa furaysaa h2 uu la mid noqdo aan dhehe average-kan ayaa laga xisaabinayaa okay sorry h2 uu la mid noqdo 9 iyo uu la mid noqdo ama uu ka weynaado waxaan adeegsanaynaa calaamadaas okay greater than or equal يعني haddii uu ka weynaado ama uu la sinaado oo 95 uu noqdo 95 ayaan leenahay meeshaas comma ayaan leenahay waxaad ii siisaa amaad ii soo rangaraysaa a plus then a capital ka dhigo plus baan leeyahay kadib double quotation markaa soo xiro comma ayaan leeyahay okay haddii halaha yar aad fahantid kuwa kale waa isam yani asaas oo la laabanay if haddii equal ayaad leedahay marka hore if haddii h2 uu ka weynaado ama uu la mid noqdo 95 waxaad iisoo daabacdaa ama iisoo rangaraysaa a plus okay sidoo kale halkaasi haddii aad fahantid sidoo kale kuwa kale waxaa iyagana lamid if ayaan leenahay haddii uu h2 uu la mid noqdo ama uu ka weynaado 9 ayaan leenahay tan comma ayaan siinaynaa double quotation ayaad furanaysaa waxaad ii daabacdaa then waan soo xiraynaa double quotationka then comma ayaan leenahay isla sidii waa haddana if haddii h2 uu ka weynaado ama uu la mid noqdo 9 somaan 85 marba 5 ayaan hoos ugu degaynaa iskuul badarajiisa u xisaabsanaysa asiga ayaa og okay then waxaan leeyahay double quotation waxaad iisoo daabacdaa b plus then double quotation ka soo xir comma dheh then waxaan leedahay haddana if haddii h2 oo la mid noqdo calaamad bareega furto h2 uu la mid noqdo ama uu ka weynaado 80 waxaad ii daabacdaa comma ayaa leedahay double quotation b ii daabac double quotation soo xir comma ayaad leedahay okay sidoo kale if haddii uu la mid noqdo h2 ama uu ka weynaado 75 waxaad ii daabacdaa double quotation commada yaala iloobin c ayaad ii daabacaysaa b plus b c then double quotation soo xiro kadib comma dheh waxaan leenahay haddana if haddii c plus ayaan laga rabaa meeshaan sorry c plus ayaa laga rabaa okay aan kusii socono marka if haddii uu h2 uu la mid noqdo if haddii h2 uu la mid noqdo c 70 ama uu ka weynaado
toddobaatan waxaad ii daabacdaa C then waxaan leenahay comma if haddii meeshan ay kusoo gabagabay doonaa haddii h2 uu la mid noqdo ama waxaan ka wadaa haddii afwan haddii uu h2 uu ka yaraado 70 koma dheh waxaad ii daabacdaa D waa D okay kadib inta break aan soo furanay xisaabsano aan soo xirxirina okay 1 2 3 4 5 6 7 okay 7 break aan soo xirina okay shift 0 1 2 3 4 5 6 7 okay then marka halaas dhammeeno 1 2 3 4 5 6 7 then waxaan leenahay enter okay kadib midda koowaad waxaa inoo soo baxday a plus ayaa inoo soo baxay koowaad then calaamad sidii ay u qabanaynaa hoos ayaan u jiidaynaa gradeka sidaa ayuu ku dhamaaday a plus b plus c plus d c d okay oo u jeeda soomaan okay sidoo kale resultiga ayaa inoo dhiman resultiga oo ah qofkan wuu haray iyo wuu gudbay inaan soo dhahno okay isla sidii waa isna qaacido yar ayuu leeyahay aan la socdo waxaa leenahay equal if haddii h2 uu la mid noqdo h2 uu ka weynaado ama uu la mid noqdo 60 ama 60 iskuul walba mid si inuu ku dhaca laga yaabaa dhicitaankiisa gudubtiisana meel inuu ku egyahay xaddigaas marka u dhaxaysiinaysaa sambalka daniga wada waxa waaye 60 ilaa wixii ka sareeyay qofka soo gudbay wixii ka hooseeyana uu dhacay ama haray okay comma markaan dhaho double quotation ayaan furayaa waxaan leeyahay 60 wixii ka weyn qofkii keenay gudbay uu gudbay okay comma ayaan leeyahay double quotation ayaan furanayaa else ayaa soo haraysa marka maanta oo dhan if ayaan sheegayna soomaan else haddii kale waay yani else ma soo muujinayno laakiin meeshaan ayaan waxaan dhihi doonaa double quotation dhacay yani haddii uu la facaado ama uu ka weynaado 60 waxaa isoo daabacdaa gudbay ayaa daa soomaan haddii kale dhacay yani haddii uu ka yaraado 60 wixii ka hooseeya dhacay ayaan leenahay wuu haray ama dhacay waxaartide then double quotationka soo xir bracketka then waxaan leenahay okay sorry aan kula taan mar okay aan ku ceshno meeshaan markaad rabtid resultiga inaad soo saartid waxaad leedahay equal if haddii h2 bracketka furo h2 uu ka weynaado ama uu la mid noqdo 60 waxaad ii daabacdaa gudbay double quotation soo xir comma dheh then double quotation kala furo dhacay
haddii kale dhacay yacni 60 haddii uu ka yaraado wuu dhacay iyo soo daabac ama dhacay kadib dual quotationka iyo soo xir calaamada bareeka iyo soo xir dan waxaan leeyahay enter. okay saa u jeedo waxaa midka ugu horeey ii soo baxay gudbay then sidii ayaan yeelayaa automatic kuwa kale saa u dhamaystiro calaamadaas meesha marka ku aadiya fargees ay noqoto ayaan hoos u yara jiidaa then wixii natiijo uu soo saarayaa wuxuu dhahay koowaad gudbay labaad gudbay saddexaad afraad shanaad waxaas dhan way gudbeen hal mid ayaa ka dhacay halkaas midna wuxuu keenay 47 midka ugu horeeyo 95 97 يعني كان wuxuu keenay 72 47 midka keenay ayaa dhacay يعني 60 ayuu ka soo hoos maray Soomaa kadib uu haray. okay waxa filas intaas ina si sax asula fahnay ama si wacan askula fahnay saxaabtaydan aad ku jeclahay. okay markaan xisaabtan saa marka uu xisaabiyo hal 7 qof ayaa xisaabiyay yani waxa u baahanaa in dad ku soo daro oo kale ama dadyo kale aan liiso ku jirin oo kale marka ku soo darsanayo sidee ugu soo darsanaya. okay si fudud ayaad ugu soo darsanaysaa form ayaa jiro formkaas ayaad ugu soo darsan doontaa hadii la kala noqdo formka halkan ayuu saaran yahay aniga click marka saas ugu soo siiyo wuxuu isu saaray qofka koowaad oo la dhahay Ali Maxamed Cabdi. okay Ali Maxamed Cabdi row 1 waaye marka ilaa row 6 waan soconayaa hoos u jiidaya click aan siinaya. okay marka uu soo dhaho new record ama new row oo kale marka gelinayno macnaha qof cusub oo kale then waxaan leenahay number 7 ayaan soo mareynay number 8 ayaan meeshan gelin doonaa numberka waaye then name ayaan nooga xigo waxaan leenahay okay waxaan leenahay magac ayaan gelinaynaa Aisha ama Aisha Abshir Ali magaciga gaaban ayaa iska soo qaadanaya Aisha Abshir Ali ande Ali. okay English waxay keentay 90 Arabi waxay keentay 75 Somali waxay keentay 95 xisaab waxay keentay 95. okay qofka marka sidaas oo kale u soo gelisid darajadiisii iyo magaciisii total average grade result wax dhanaas ay noo xisaabi doono waxaan leenahay marka saas u qorano new record. okay new record marka saas u dhaano waxa u jeednaa in lagu soo daray number 8 oo la dhahayo Aisha Abshir Ali darajada ay keentay marka gelinay totalki iyo averageki iyo gradeki resultiga waxa dhanba asiga ayaa soo xisaabsaday by automatically mar walba kama doonayo sidii kii hore u soo gelinay codeka oo soo xisaabinay formula oo isticmaalaynay kama doonayo hal mar hadii aad xisaabisid automatically marka qof cusub aad ku soo dartid by automatically ayuu gali doonaa. okay formkan hadii aan ku tusiyo sida formkan aan u soo gashtay ama meesha aan u soo saartay then hal mar ayaan iska qaadayaa formka. okay iska fudud yahay sida loo soo saarto form remove ayaan iska leeyahay. okay two ways ayaad u soo gashi kartaa inaad tagtid calaamadan oo customize quick access toolbar waa si fudud meeshan inaad ku dhuftid then aad aadid more commands. okay amarada inaad sii raadisid all commands inaad ka sii gashid then inaad inta ka soo baarto samey kartaa.
okay way kale ayaan ku tusinayaa way kale waxa waaye inaad tagtid form okay waxaad tegi doontaa marka qaybtan oo loo yaqaano filekaas markaad saas ugu dhufatid then waxaad ka dooran doontaa qaybtan options meesha ugu hooseysa options office 2016 ayaan isticmaalayaa aniga qaybta ugu hooseysa ayaan ka heli doonaa options qof walbo 16 isticmaalayo options meeshas ayuu ka heli doonaa options markaad saas click ugu siisid qaybtan ayaad imaanaysaa waxaad ka dooranaysaa quick access toolbar markaad tagtid babula commands waxyaabaha in badan mostly la isticmaalo ayuu kor kuu soo saaray waxaa u baahanahay marka aniga all commands ayaan ku dhufsanayaa amaradoo dhan inaan dalbado then ayara hoos usii wadayaa hal meel click ku siinayaa form ayaan raadi doonaa f anoo ku raadinayo intii f ah ilaa aan ka helo form click ayaan f ku siin doonaa okay ilaa aan ka arko form wadaya okay waa kana halkan iga soo baxday form ayaan click ku siin doonaa okay add ayaan leeyahay way igu soo darsanayaa then okay ayaan leeyahay qaybta sare ayuu igu soo muuqan doonaa waa ujeednaa hadda automatically meesha ayuu igu soo muuqday kadib haddii aad rabtid inaad qof ku darsatid click ayaa ku siinaysaa okay waxaa ujeednaa marka row 1 inoogu soo bilaabay hoos ayuu socon doonaa row 1 okay kadib new row ayuuna weydiistay then waxaan leenahay number 9 numberkan ayaan ku dareynaa okay halkan waxaan leeyahay Ali Abdi Muse oo kale nadano English wuxuu keenay conton sidoo kale Arabi wuxuu keenay soddon Somali wuxuu keenay 60 xisaab wuxuu keenay 20 okay salaankan markaasaan u gelino new ayaan leenahay marka okay waxaa ujeednaa marka inuu halkan noogu soo xisaabiyey Ali Abdi Muse oo keenay conton English 30 Arabi Somali 60 xisaab oo ah 20 totalkii wuu xisaabsaday automatically average wuu xisaabsaday gradekii D ayuu u daabacay then resultigana wuxuu usoo baxay inuu dhacay ama haray okay sidaa filaya asxaabta si wacan ayaa loo fahmay dhammaantiinba okay waxaan idinka rajeynayaa haddii la kala noqdo inaad asxaabtiini la wadaagtiin qof waliba oo jecel excelka ama xiiseynayo okay sidaa iyo nabadgeliyo salaama bye bye